بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada muuqaalkan insha Allah halkan waxaan ka bilaabi doonaa kanaalkan aad iga daawanaysaan Cabdisamed Daacad muuqaalo markaasi insha Allah taxano noqon doona oo aynu kusoo qaadan doono markaasi waxyaabo loo yaqaan web development-ka kuna baran doono markaa luqadaha HTML-ka CSS-ka JavaScript PHP iyo markaasi wixii la xiriira markaa macquul noqda inaan insha Allah isla samayno kolley web development markaad baranaysid waxyaabo muhiim ah baa jira inaad markaa aad ku bilowdid marka insha Allah muuqaalka ugu horeeya waxaan kusoo qaadan doonaa markaasi HTML iyo muuqaalada ku xiga oo insha Allah iyagana ka hadli doona CSS muuqaaladu taxan noqon doonaan insha Allah maalinba waxaan soo gelin doonaa inaan weekii aan mid ama laba soo gelin insha Allah ayaan isku taxallujin doonaa si aan markaa u soo saarno bal website-yo aynu ku samayno luqadaha aynu baranayno oo ugu horeysa HTML iyo CSS insha Allah JavaScript waxaynu kaga dari karnaa ayagana waynu kaga dari doonaa marka website-ka marka kolley sameynaysid laba qaybood buu qaybsamaa waxa loo yaqaano front end iyo back end xagga hore ama wajahada hore oo waxaan loo yaqaano foolka iyo waxa loo yaqaano yani back end-ga xagga dambe ama qadaadka af Soomaali haddaynu idhaahno wajahada hore ee website-ka qofku marka soo booqdo oo arki karo iyo back end-good tusaale inta badan xagga dambe dadka markaasi administration-ka iyo waxaas ay arki karaan haddaba waxaa lagu bilaabi karaa markaad doonaysid inaad baratid web development ama programming markaad doonaysid inaad baratid waxaad ka bilaabi doontaa luqadahan tusaale HTML hadaad taqaanid waa inaad CSS ka baratid aad JavaScript saa wadid must waxa inaad HTML ka taqaanid si markaasi aad programming-ka aad u dhex gashid inta badan waxay ka saacidayaan luqadahani waa luqadaha asaasiyaadka ah waxaanay ka saacidayaan markaa inaad advantage ama aad faa'iido ka gaadhid programming-kaaga ama web development-ka inaad meel ka gaadhid waxaa jira WordPress-ka oo inta badan lagu sameeyo website-yada in laftigiisu markaa meel ay kaaga baahanayso inaad markaa luqadan taqaanid inta kale laakiin inkastoo wada diyaarsan yihiin oo templates iyo wax lasoo gelgeliyo laakiin waxaad u baahan tahay still inaad baratid HTML iyo CSS iyo xogaa JavaScript PHP laftigiisa waad u baahan tahay PHP laakiin waxaad u baahanaysaa markaad noqonaysid full stack developer ama front end iyo back end labadaba aad samaynaysid ayaad isku qaadan kartaa insha Allah bal si taxanaa baynu wadi doonaa waxaynu ka bilaabi doonaa HTML5 dabeedna waxaynu ku xigsan doonaa CSS3 dabeedna waxaynu ku xigsan doonaa JavaScript haddii aad Java maqashid iyo haddii aad JavaScript maqashidna kolley way kala duwan yihiin oo different baa u dhexeeya haddaba bal HTML waa maxay what's HTML horta HTML-ka stands waxaa loo soo gaabsaday for hypertext markup language marka H-ta waxaa loo soo gaabsaday hyper T-da waxaa loo soo gaabsaday text M-ta waxaa loo soo gaabsaday markup L-tana waxaa loo soo gaabsaday language marka waxaa loo soo gaabsaday HTML hypertext markup language waa qodobka koowaad qodobka labaad HTML-ku yani waa luqad standard ah oo marka lagu dhiso website lagu sameeyo qodobka saddexaad waxaan odhan karnaa markaas HTML-ku wuxuu qeexaa ama uu sheegaa structure-ka website-ku yeelan doono ama page-ka website-ka oo uu yeelan doono ayuu ku qeexaa nooc noqon doona hadday noqoto height-kiisa hadday noqoto width-kiisa hadday noqoto markaasi columns-ka hadduu table yahay wuxuu qeexaya adigu structure-ka website-ka HTML-ku inta badan wuxuu isugu jiraa ama uu ka samaysan yahay marka elements isku xiga ama elements yani la isku dhisay weeye tusaale HTML-ku waxa la yidhi wuxuu sheegayaa browser-ka wuxuu sheegayaa how to display the content gudaha waxa ku jira siduu markaa browser-ka waxa weeyaan marka programka aad ku booqanaysid internet-ka ku xidhan netka maad website-ka aad ka booqanaysid baa la yidhahdaa browser sida Google Firefox Safari Opera Mini iyo wixii markaa la mid ah browser ah aad markaa wax ku booqanaysid ayuu u sheegayaa markaasi sida uu soo saarayo content waxa gudaha ku jira hadday video noqoto hadday text noqoto hadday image iyo sawir noqoto hadday links noqoto marka wax halka ku jira ayuu qaab loo soo muujinayo ayuu sheegaya HTML elements-ku waxa la yidhi waa label pages of content such as this hidden yani waxa weeyaan content-ku
tusaale waa heading oo kale, waa paragraph oo kale, waa link oo kale, waxyaabo lamid ah. Marka waxyaabo kala duwan oo qaybo go'an oo paragraphku yacni meel gaar ay ku qormayaan, heading ciwaanada gooni bay markaa u go'ayaan, linkyadu meel bay gelayaan. Marka qaybahaas ama pieceskaas ayuu ka kooban yahay. haddii aanu qeexno CSS-ku muxuu yahay, horta HTML CSS ma kala maarmaan. Inta badan website-ka markaad dhisaysid, HTML quraha haddaad ku dhisid waa qolfaaf qalalan buu noqonaya. Tusaale qofka biniaadanka lafihiisa, skeletonka, mar qofka aad saa u eegtid, iyo markaad qof eegtid waxaan la yidhahdaa skeletonkan inta badan bahdan caafimaadka isticmaasho, marka feedhihii iyo madax dhakadii iyo sankii iyo wixii isku yaala. hase ahaatee aan markaa lafi aan lahayn, lafo aan hilib lahayn ama aan dahaar lahayn, saasoo kale weeye. Marka website-ku CSS la'aanta badan ma qurux badna, oo wax quruxa oo yeelanaya ma jiro. marka CSS-ku waa ka qurxiya. CSS-ka marka waxaanu karnaa waxa weeyaan, CSS-ka waxaa laga soo gaabsay isagana waa cascading style sheet. marka sheetkan iyo stylekiisa ayaa markaasi hagaajinaya. CSS-ku markaasi wuxuu qeexayaa elementiskaas sida uu soo muujin lahaa screen-ka, haddii noqoto markaasi paper warqad ahaan, haddii noqoto other media sida video, haddii noqoto image iyo waxyaabo kale oo ka duwan. CSS-ku sidoo kale markaasi wuxuu save garanaya lot of work, shaqo badan oo markaad qaban lahayd oo aad ku qaban lahayd, aad HTML ku qaban lahayd, tusaale xidhin marbaad dhammaan wixii H1 inta dooratid ama ciwaanka koowaad, wax kasto ciwaan ah ama wax kasto paragraph ah, kalarkaasi markaas shaqo badan buu ku save garanaya, waqti badan oo qaban lahayd ayuu ku save garanaya. markaasi waxaad ku control kartaa baa lagu leeyahay layout-ka ama muuqaalka markaasi multiple web pages, page fara badan oo markaa website-kaaga ku jira ayaad hal file oo markaa CSS aad ku maamuli karta, hal meel baanad ku wada maamuli karta. waxaa la yidhi markaa waxaa la jira external style sheet baa jira, isaguna lagu kaydiyo markaasi CSS file CSS askana lagu kaydiyo. tusaale CSS saddex buu qaybsamay inta badan, waxaa la yidhahdaa inline iyo waxaa la yidhahdaa internal iyo waxaa la yidhahdaa external. inline-ka inta badan waxaa lagu qoraa, inline-ka waxaa lagu qoraa element dhexdiisa lagu qoraa. tusaale haddii body shape yahay, gadaal baynu ka arki doonaa sharaxaada. inline-ka inta badan element ku dhex galaa, halka internal-kuna uu dhex galo markaasi xagga sare oo waxaa la yidhahdaa head buu dhex galaa, oo isla hal page oo ama hal file buu gelayaa, xagga sare ayuu ka gelaya, oo marka file meel sare laga maamuliyo wey. waxaa la yidhahdaa external-ku isaga waxa weeyaan in file gaara oo CSS aad samaysatid, file gaar oo HTML aad samaysatid, kala madax banaanada, markaa linki baad isugu xidhisaasay iyagana. marka HTML-ka iyo CSS-ka ayaan ku horreyn doonaa, oo insha Allah markaasi aynu casharanta ugu horreeya ku qaadan doonaa. haddaba waxaad u baahan tahay markaad CSS iyo HTML aynu qeexnay in aad qaadatid aad haystid dhowr shay. dhowrkaa shay number one waxaa ka ah markaa inaad browser haystid. browser tusaale Chrome-ka ama Safari ama wuxuu doonaa noqdo, ama Internet Explorer, wuxuu markaa internetka aad ku booqan kartid browser ama file kuu furaya inaad haystid. sidoo kale waa inaad haystid number laba, waa inaad haystid text editor. text editor-rada way aad bay fara badan yihiin, marka qofku kii uu doono isticmaali karaa. waxaa jira mid uu ku yimaado markaasi computerka window kasta uu ku jiro oo la yidhaahdo markaasi notepad. haddii aad markaa notepad-ka isticmaashid, waad isticmaali kartaa. haddii aad isticmaali kartid notepad plus plus baa jira isagana, oo isagana waad la soo degi kartaa. waxaa jira isagana waxa la yidhahdaa sublime text baa jira oo waad la soo degi kartaa. waxaa jira waxa la yidhahdo VS Code. anigu laakiin waxaan ugu jecelahay inaan isticmaalo VS Code-ka, waayo waqti badanna wuu ku save garaynayaa. marka qaabkeed markaad jeceshayna waad ka dhigan kartaa, hadday noqoto colorkiisa, hadday noqoto markaasi waxyaabo badan baad ku maamuli doontaa. marka markaad la soo degaysid VS Code-ka, waxaad u qori doontaa markaasi adigu waxa weeye waa Visual Studio Code. Visual Studio Code marka waa shirkadda Microsoft ayuunbaa leh, oo Microsoft baa samaysay. marka website-ka geli doonta markaasi code.visualstudio.com. markaad website-ka gashid baad markaa ka arki doontaa inuu xaggan ugu sarreyso soo saaray. marka waa kan, oo halkan baad markaasi kala degi doontaa. hadaad halka qabatid, isagoo waxaad arki doontaa Mac ah, isagoo markaasi window ah, iyo isagoo Linux, saddexda waad la soo degi kartaa.
marka haddaad Windows isticmaalaysid kan dhexdadii haddii aad markaa isticmaalaysid Linuxna kan hoose haddii aad markaa Mac isticmaalaysidna kaas